السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال meel walba oo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka arrimaha bulshada oo ka baxa telefishinka New Africa qaybtiisa afka Soomaaliga maalin walba marka laga reebo maalmaha Sabtida iyo Jimcaha barnaamijkan ayaan uga hadlaa arrimaha quseeya Soomaalida caawa waxaan isku dayi doonaa inaan ka hadalno samaysanka qabiilka Soomaalida barnaamijka caawa waxaa marti inooga ah oo arrintaasi aan noo faaqidi doona Mubaarak Axmed Maxamed oo daneeya dhaqanka afka iyo arrimaha Soomaalida Mubaarak ku soo dhawaad barnaamijka aad ma mahadsantahay Cabdiqaadir indhawaay caawa waxaan ka hadli doonaa qabiilka anagoo dhinacyo fara badan ka eegi doona balse waxaan rabaa marka hore intaanan aan gudaha u galin barnaamijka inaad noo qeexdo horta Soomaaliga asalka Soomaalida waxay noo taab haddii aan ku horeyno guud ahaan Soomaalida asal ahaan waxay kasoo jeedaan waxaa loo qeybiyaa badanaa afar category ama afar qeybood baa loo ablaablayaa marka waxaa la dhahdaa afar qowmiyad bay kasoo jeedaan marka waxaa lagu saleeyey ablaableynta noocaas waxaa lagu saleeyey mid xirfadeed yani shaqaday badanaa dadku hayaan tusaale ahaan qaybta koowaad ugaarsato oo asalkooda waxay kasoo jeedaan reer Xaam sidoo kale qaybta labaad raacata raacatada marka waxa laga wadaa xoolo dhaqatada ama ari geel lo waxay doonaan dhaqdaan qaybta saddexaad oo ah reer xeebleeda dadka xeebaha magaalooyinka xeebaha Soomaaliya ku teedsan dadka degan oo badanaa ganacsatada u badan reer xeebley ah oo la yiraahdo asalkooda waxay kasoo jeedaan Arab جزيرة العرب أما كونفورتا جزيرة عربتا أو يمني وعماني لوكا dadkaas oo dadka badan xeebaha degan xeebleeda la yiraahdo dhulka Soomaalida waqooyi bari ilaa koonfur dhulka magaalooyinka xeebaha Soomaaliya ku tagsan Saylac Berbera Boosaaso maxay toolay Marka Muqdisho Siwad dhulka xeebaha ku tagsan badanaa dadka la xiriiray weyn dunida caalamka kharij wixii ka baxsan deegaanka Soomaalida ama geeska Afrika dadka ganacsiga dadyoga kale bulshooyinka dunida la xiriiray ganacsiga wadaarsan badanaa xiriir dibadeed la leh ayaa ganacsi bay ku cayihiin oo la yiraahdo saasan hore u tilmaamay koonfurta jasiiradda Carabta kasoo jeedaan asal ahaan sirkooda waxaa qaybta afraad ah beeraley iyaga waxa la waxay kasoo tegaan Bantu oo yani labadan wabiga Shabeelle iyo Jubba hadaan khaldanayn dadkii wabiyadaasi waxa laga yaabaa inay maanta dimuqraafiyadda sukaaniga yani dad isbedeshay oo laga yaabaa dad badan uga badan yihiin laakiin yani dadka labada macna asal ahaantii dadka hoosan oo degnaa oo beeraha Frenchti sax marka afarta qowmi ayaa loo qeybiyaa soo kale waxa jirta category kale oo tasniif aakhir oo loo qeybiyo oo la ablaablayo oo la yiraahdo dadku waa saddex sax oo waxa la waran leh waxa la dhaqtada laga wado iyo beeraleyda iyo dad wadaad bulshada marka la qeybinayo oo taas waxa asalka Soomaalida marka laakiin bulshada la qeybinayo waxay ka kooban tahay iyada tan lafteeda waxa moodaa professional ahaan la eegiyo sidii hore tan waa isirka san hore uga sheegay tanna waa yani bulshadu xirfadii iyo howlaha ay kala qaybsanayeen dadka bulshada Soomaaliyeed howlaha say kala qaybsanayeen sax wadaadku dadka culimada laga wado iyo waabli oo laga wado dadka xirfadda leh professionalka ah ama ugaarsato ama waxa ka shaqeyso hargaha iyo waxaas ama tumaale iyo birta waxa ka shaqeyso oo dadka waabla waxa laga wada meesha ira waabada ay ku jiraan sax waxa kale jira dadku abtirsada magaalooyin sida dadka loo yaqaan Xamar Xamaraawi sax ama dad webiyo ku abtirsada
marka sidoo kale magaalooyinka waxaa kamid ah Baraawe, Marka, reer Baraawe, reer Marka. dad webiga ku tirsaa jira, webiga Shabeelle, beelaa la yidhaahdo webiga. dad jasiirad ku abtirsaa sidoo kale jira, sida yani Baatunta oo kale. marka categorigaas uu jira. asal ahaan isirka marka la eegayo dadka meelay kasoo jeedaana lama odhan karo hal meel bay kasoo jeedaan. dadku waa dad, maadaama waxaan ku noolaa dhul xeebeed xaggan badweynta Hindiya xaggan badda cas, dad in badan ganacsanayo bulshooyinka adduunyada la xiriir la leh. marka dadku meelo kala duwan bay, ma la odhan karo yani dad islaam ah hal oday kasoo wada jeeda ma jiro. deegaanka waxa kaliya madeeyay deegaanka markii dambana kolley dee wixii kale gadaal baan uga iman doonaa. aad iyo aad Mubaarak, aad baad u mahadsan tahay. anigoo meeshaas kasii anbaqaadeen waxaa tiri Soomaalida qaybo kala duwan ayaa loo qaybay oo ugu muhiimsan midii qoomiyad ah oo aad sheegtay oo afarta u qaybisay. dadkii maadaama afar luqad ku hadlayaan, dadkii leeyahay wax isku dhaqan. marka dadka qaar waxay leeyihiin marka dhin kale haddaan u fiirin horta Soomaalida aslan sida maxaa miday horta hadiiba aan dhankaas dhinaca kale intaan u gaarin dhinaca kale. runtii Cabdiqaadir waa mahadsantahay, waa weydiimo aad u wanaagsan runtii. haddeen gudo galno su-aasha, waxaa la yidhaahdaa dhulku waqooyigu marka hore, waqooyiga Soomaaliya dhul barwaaqa ah oo kayma leh, sidii sahmiyaashii hore qoraaladii ka sameeyeen qarniyadii hore. marka dadku waxay usoo hayaameen, waxa jira hayaan joogta ah oo dhanka koonfurta dadku hayaameen oo ahayd iidan maadaama waqooyiga ahayd meeshan sideed iidan ka wabiyada iyo ka jiraan biyo. sidoo kale waxaa jirtay dadka wax kala mideynayay, dadku xoolo dhaqatay ahaayeen, weliba geel ha ugu sii badnaado. dadku markaa way gurgurayeen, markaa magaalo ka tegaya, deegaan buu ka tegaya, deegaan kaloo tegaya. dadkii markaa yani ma kala xidhna oo dad deganoo sida qofka beeraleyda qof degan ma gurgurayo. sax. laakiin qofka geel dhaqda baadiyo biyo raadsanaya, aad iyo abaara dhacaya ama qof soconaya, kolba meeshii wuxuu daba ordaya, uu daba rooraya, yani meeshii naqle biyo ka helayo, cusub iyo wax ka jiro, naqi cusub. marka yani taasaa keenaysay inuu meel ka tago, meel kala tago. bulshada iyo deegaan iyo dhul aan aqoon buu ka tegaya, deganaa marka hore ayuu tegaya, dad kale oo aanu garanaynin. marka waxaa imanaya in yani iltiqaa sibaabo oo dhaqankii iyo wax badan ay la kala qaataan. sidoo kale waxaa jiray waxyaaba ay odhan karno Soomaalidu yihiin ama yani wax iskaga iman karaan oo fara badan, yani isku fahmi karaan, isku afgaran karaan jira. guurka shisheeya, guurka shisheey dibadda uga baxsan fi idaari qabiil, yani reerka ka baxsan, beesha ka baxsan. badanaa Soomaali ceeb bay arki jireen inuu qof wiilku guursado in adeertii. marka guurka malaa imika buryahan wax isbedesho, dhaqanka waa isbedel badan yahay ma aflaya. oo sidaan shareecadu tilmaamaysana waxay door bidaysaa guurka shishe. culimmadan sayniska iyo dadka cilmi aqoontan cusubna waxay tilmaamaysaa in guurka yani waxaa u fududaanaysa in la kala qaado cudurrada qaar waraadsiga isdhexlo hidaha. marka guurka shisheeya qayb ka noqon kara. tusaalooyin baan ka bixin karnaa. tusaale ahaan sidoo kale waxaa jiray heerin. dhaqan Soomaaliya lahayd oo hablaha Soomaaliyeed markaa dee waxaa dhici kartaa hablaha qaar baan la guursanin oo lasoo doonin. marka waxay samayn jireen iyagoo kooxaa bay hayaami jireen, deegaankoodii ka tegay, deegaan kale tegi jireen. markaa reerahaasi markaa u bandhigi jireen la guursado. markaas taasina way jirtay. waxaa ka mid tusaalaan kasoo qaadana guurka shisheeye iyo sida Soomaalidu u saameeyey. tusaale ahaan reeraha Soomaaliyeed ama beelaha waxaad ku arkaysaa dad magacooda qabiil kale yahay. tusaale ahaan ma jeerteen oo kale bah iyo door baa ku jirta. oo ah in bah iyo doorta intaan u gudbin meelaha kale, bah iyo doorta maxay waxa weeyaan tusaale ahaan yani odaygii laba reer buu leeyahay, laba islaam laba dumar qaba. marka dadkii laba reer kala tusaale ahaan aan qabiilkiisa ahayn bo. marka labadii reer markay farxamaan yani faacayaal kadib markay waxaa loogu macdarayaa hooyadood baa lagu magacdaray. marka yani isaaqoo kale bah dhulbahante, ciise bah xarle, gudo biirsi, bah abgaal ama bah warsangeli. taas leeg yani waxaad guurka shisheeye markaa wax qayb ka qaadanaya in dadkii isbartaan, isdhex galaan, kala gurisiga saas u keenaya. sidoo kale waxaan odhan karnaa qodobka afraad af Soomaaliya yani waa waxa dadku isku fahmaan. hadee
mideeya oo markaa waxaan odhan karnaa waxyaaba qaar deegaanada qaar ka qayb qaatay in aada laysaga soo dhawaado. waxaa ka mid ah suugaanta ama wadareed suugaanka wadareed waxaan bixiyey ama suugaanta taxanaha gabayada yani waxa jirtay mubaarak intaan u gudbin suugaanta taxanahaasi waxaas waxaan rabaa qodobka af soomaaliga inaan wax ku istaago maadaama dadkan ay kala duwanaayeen oo asal ahaan ay isku mid ahayn marka ma laga yaaba ixtimaal ahaan yani filasho in Soomaaliya dhulkan hadda loo yaqaan in afaf kala duwan loogu hadli jiro aan af Soomaaliga oo qayb ka mid u ahaa ma laga yaaba waxa kulli qoraaladan intan badan arkay yani waxa jira yani afka garaha iyo jiilaha iyo afaf badan baa jira afafkaasi yani si marka culimada linguistiga ama afafka baara waxay tilmaamayaan af Soomaali afka yihiin lahjaadku maxaa tiri iyo afafka lahjaadka ku sheegay garaha iyo jiilaha iyo dhamaantood يعني لهجتها yihiin laakiin common waxa jira common Somali common waxa la dhahdo صح common Somali language waxa jira la dhahdo war afkii kulli yani suugaantan san anigu aragtidaasan qaba suugaanta ama suugaanta taxanaa waliba qayb hawla ka qaadatay aad warbaahinta markii damana warbaahinta bulshada Soomaaliyeed يعني dhaqankaas xog ku leh dhaqanka geelida ama waxa dhaqatada markii tan warbaahinta iyo dugsiyada iyo kulay صح qodobkii oo suugaanta waday oo asal kamid aha marka yani silsilado fara badan baa jiray guba xayd yani waxa la qasiisaa qaar waxay ilmihii dhashay ayaa soo gunaanaday صح taasoo kale maxaan u yiri waxa dhici karta يعني bulshada yani waxay ahayd qalab agabka wax la isku gaarsiiyo dagaal marka la rabo marka dad looga digiyo marka dardaaran iyo marka cid la weerarayo gabayaga kala warbaahinta wasaaradda warfaafinta iyo qalabka warbaahinta dowladda marka dhaqanka wanaagsan ee suuban baa la isugu gudbin jiray صح yani wax la oran karo soo dhaweynta iyo inay wax laga midaysnaado qayb ka qaadan kara aad runtii markan waxaan u gudbaynaa mowduucii dhabta ahaa ee barnaamijkan ku saabsanaa ee samaysanka qabaa'ilada Soomaalida anigoo ku bilaawayna qeexitaankii erayadan soo socda ah qabiil iyo beel iyo tol adagoo hal u kala qaaday haddii aan ku horeeyo erayo badan baa jira erayga qabiil waa af carabi wax naga soo galay badanaa walaga qarniga sagaalaad ku xikooreen insha Allah hadaa waqti u helna naftirkiisa waan fiirin doonaa erayada afka carabiga ee macnaha Soomaalida caadi la noqdo iyaga naftirkooda insha Allah qabiilka oo kala sidoo kale erayo la mid ah jira erayga tol iyo beel iyo tanca wax kamid ah ka tilmaamo erayadaas oo muujinaya in dadku isku biireen oo aanay nasab wadaagin waxyaabo muujinaya soo ahaan eraygan oo kale tol oo mahmaayo far badan ama odhaahyaa jira ku jirta Soomaalida af Soomaaliga salahan tol waa tolane oo laga wada waa dad la isku keeno isku tolay oo tilmaamaysa in cid ku biirtay tilmaamaya sidoo kale waxa tol waa tog waan garan karnaa tog ila badan baa jira ila badan tog jidadii yararooda biyo ku soo dhacaan tog ka sameysma Soomaa jidad fara badan ila yar fara badan laaga fara badan oo aan islahayn isku imaaday hal meel meelo badan kale saaweyn maxaa tolkan meelo badan ka yimaha yani ahna qana badana yani maskaxdeena ku jirnaa dadku meel ka yimaadeen ab iyo hooyo yani laakiin macna waa loo qaadan karaa hadii si loo fiiriyo macnaha wax hadii oo si ashagtaba wax kulminayaan soo idan loo ma qaadan karo dadkan kala duwan inay naftarkooda leeyihiin wax kulminayo oo asal ah oo hadii asal yahay inay toga ka farcamaan laakiin togi halkii biyo isku shumayeen yaa asala togu halkii biyo ku ursameen laakiin laamaha ka yimaanayeen baa waxaad markaa ka dareemaysaa tog odhaahda tog waa tol waa tog saad yani kadib dad isku yimaanayeen soo kale waxaa jira murti dadka raxwinka ma digni marifka isticmaalaan reewin waa kabdo oros waa oo laga wado adoo waxay ku cilan si tabaasho fiican u maqlaan يعني ريوين كبدو رسوا كل أنا ما قان لكن الناس أكو حسنا في الرحوين ولا جوضه
reexaan waa sidii kabda aroos Ah, macnaha kabdaha waxaa dhaqanka reexaanka jiray inay markay gursato inay dadku hablaha kale soo dhismaha guriga ka qayb qaataan sax marka waxay oraahdaasi tilmaamaysaa sax in sidaa kabdaha lasoo ururiyo kale yihiin dad isku keenay marka taas halkaas san kaga dhaafin ereyga aha tol haddii aan gudubno ereyga kale isna muujinaya la macnaha Soomaalida aysan ها قاموسka ismaanka liido 1976 la qoray wuxuu tilmaamayaa ereyga beel inuu la mid yahay beel macnayaal fara badan deegaan dad beelo fara badan deegaan degan sax sidoo kale wuxuu la mid yahay cid ka xoog weyn qabsatay ama sidoo kale ku beelo oo kala ereyadaas qaabka ku imanaysa oo cid kale ku beertay badana saasay tilmaamaysaa ayuu qeexaya lahjada gabraha afwan waxaan ka wadaa lahjada garaha ereyga beel wuxuu tilmaamayaa waday ama jaal oo yani kulli waa ereya Soomaaliya hore adeegsigooda ku yaryahay inagu yaryahay hadda ama laga soo tagay macnaha wax laga wadaa may adeegsigan hata wax laga dadka qarinaya garan laga wado badana ereyga jaal wuxuu dhigan karaa zamiil halka ereyga af carabiga zamiil loo garanaa qof macnaha qof wax barasho dhigataan ka duwan saaxiib waa waday laakiin zamiil waa jaal sax marka ereygaasna wuxuu u lahjada af garaha beel wuxuu leeyahay taa macnaheedu waa maxay de qofkan kula dhalan saaxiib ma oranaysa walaal baa dhaysa marka waa dad ereyga qabiil oo kan ugu dambeysay ah oo si fiican u dhiraaneliyay aan kasoo xiganayo buugiisa Cabdalla Masuur marka isagu wuxuu leeyahay ereygan law asligiisa hadan eegno waa laba macno qaata qabuul iyo qabila soo dhaweyn iyo ogolaansho oo oranayo fisa salahan wuxuu soo qaaday quraan innahu yaraaka huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnu marka ma aydaas macnaheedu huwa wa qabiluhu isaga iyo kooxdiisa marka koox ba tilmaamaya marka markuu dhiraandhiriyay labada siiqe iskan naqaano sarfiiqo ay ku imanaysaa marka wuxuu tilmaamayaa inuu qabiilku si joogteen ah u soo dhaweeyo una ogolaado inay cid kale ku soo biirto ugu soo dhiraandhiyay runtii yani waa Cabdalla Masuur saan naqaano waa aqoonyahan afka ku soo adan loo ixtiraamo cilmi baaris badan ku sameeyay runtiina takhasus yahay sax ama wax bartay linguistic yani afka aqoonta sax cilmi afeedka marka yani taalifteeduna oo natiijada uu gaadho markuu dhiraandhiyay uu leeyahay yani qabiilku badana inuu macnaha reer kale u aqbalay si joogta aan ahayn tii martigelintii muddo koobneed ah laakiin yani ereyga siiqada ficil buu ku imanaya oo ah muddo dheer oo si joogta ogolaansho ah iyo soo dhaweyn joogta ah sameeyo marka taa ereyada macnaha tusinay oo dhan guud ahaan markaas ku soo ururino ereyadaasi magacyadaas waxay tilmaamayaan dad isku yimi waan islayn taa macnaheedu ma dadku garacyaa ma asal miyaan lahayn taa macnaheedu laakiin dadkan waa dad yani duruufta keentay yani dagaalada jiri kara waa tiro badnaan kartaa waa tiro yaraan kartaa waxa jiri karta duruufo dabiici meel kale deegaankii dadka gurta deegaan kale tagaysa dad badan tagaysa dadkii wax qoranayaan shuruud bay ku yani sax waxa dhici karta wax badan yani duruuf masaa'iba san horosh waxyaabo ba isku keeni karo sida kale waxtarkeeda in daraasooyin iyo baaris kale marka yani waxaan tilmaami karnaa tusaale ahaan dad qabiilada macnayaasha tilmaami kara tusaale ahaan saddexda ciise saddex soo raac ciisaha u kala baxa sida sax macnaha waxaad dareemi kartaa saddexda ciise saddex soo raac inaan ahayn dhalad dad yani dan madaysay tahay sax waxaa kaloo jirta 9 iyo 8 mubaarak meeshaan hal mar ayraal noqo meeshaan ka dhax galo barnaamijka inta aan kasii wadayna daawadayaal wali waxaad daawanaysaan barnaamijka arrimaha bulshada oo aan caawa kaga hadlayno samaysanka qabaa'ilada Soomaaliya barnaamijku waxaa marti nooga ah Mubaarak Axmed Maxamed oo daneeya dhaqanka afka iyo arrimaha Soomaalida waxay noo socdaa waxyaabo kala duwan balse qadar yar oo xayeysiina
telefishinka New Africa waa mid guud oo aad kaga bogan doontaan barnaamijyo kala duwan kuwaas oo taabanaya dhan kasta oo nolosha ah waxaana si gaar ah loogu talagalay bulshaweynta Afrika kuna baxaya afaf kala duwan sida Sawaaxiliga, Hawsaha, Ahmaariga iyo afka Soomaaliga. fariintiisuna waa xal u helida dhibaatooyinka jira qaaradan isagoona u maraya qawaaniinta iyo shuruucda saxda ah ee u degsan warbaahinta xaruntiisuna waa Khartoum, Suudaan. higsigeenu waa barwaaqada Afrika iyo horumarkeeda daawadayaal waxaad mar kale ku soo dhawaataan barnaamijka arrimaha bulshada oo aan caawa kaga hadlayno samaysanka qabaa'ilada Soomaaliya waxaana barnaamijka marti noogu ah Mubaarak Axmed Maxamed oo daneeya arrimaha dhaqanka iyo afka Soomaalida Mubaarak aduu meeshaad ka sii wadanaya haddii aan galno su'aasha inoo xigta ah macnaha sidee uu samaysmaa qabiilka Soomaaliya taas aan ka sii waxaan rabnaa inaan wax gadal ku celiyo oo ah midii aan ka hadlaysay oo waxaad qeexday qabaa'ilada Soomaaliya iyo sidii culimada u qeexayeen qabiilka iyo tolka iyo beelash oo gabagabadii waxaa kusoo gagabaysay in ereyadaasi ay tilmaamayaan in Soomaalida aysan isku mid ahayn waxaan soo maxaa la dhihi jiray tusaale ahaan waxaan soo qaadatay Ciise iyo wax saddex oo kale ah tusaale ahaan yani marka erayadan waxay muujinayaan tusaale ahaan iskaashato reer Muqdisho deegaan sanfalayo magaca waxaa ka muuqda iskaashato in dad yani danaha iska kaashanaya saddex Ciise iyo saddex soo raac sana hore tilmaamay Hubeer iyo soo raac marka say erayga damaan sheegno oo dadkii la soo dhaweeyay la taliyay sagaal iyo siyeed oo loo kala yaqaan labada qaybood waaweyn qabiilka digni marifla ka wada shan gamas oo iyaguna shan reerood u kala baxa yani saas oo kale dhammaan tusaalayn badan baa laga helaya beelaha Soomaaliya dhexdeeda oo tilmaamaya in waxay magacyo badan oo tilmaamaya su-aashan oo daawadaha isweydiin kara waxaa ka mid ah wuxuu dhihi karaa macnaha qabaa'ilada Soomaalida sidaan ognahay waa macnaha isku kakeen iyo waa is aqbalaan maadaama isku gursi wax soo jiraan dadka waxay xad macnaha Soomaalida waqtigan dambe macnaha warbaahinta iyo badan siyaasiyiinta adeegsadaan in Soomaalida ay mid yihiin asal ahaantood dhaqankooda mid yahay afkooda mid yahay diin haliya marka ereyada saas oo kale maadaama ay aad u bateen aad u yihiin ereyada macnaha tilmaamayaasha tilmaamaya in Soomaalida aysan isku mid ahayn marka maxaa keenay in uu bato midkan dambe oo ah in Soomaalida oo xoojinaya midnimadii asalka Soomaalida ما أسباب سياسي ما أسباب اجتماعي ما أسباب دخن وحبة ما يجري horta yani waxaa jirta waxaan ka hadlaynaa asalka dadkan ay ka yimaadeen haddii maanta waaqaca ka hadlayno dadku mujtamacaad fara badan bulshooyin fara badan dunida ku nool saas laakiin nidaamyada ay weeyaan laakiin dadkan taariikhiyan asalka iyo halkay ka yimaadeen iyo ay ka sheekeynaa laakiin hadda Soomaaliya kale dee waxa weeyaan hayb huwiye juqraafiya waxa la yidhahdaa midaysa dadka oo dadku dee wada degaan dhul baa ilaahay qadar juqraafi waxa la yidhahdaa jira dadka ilaahay baa dee meel wada dejiyey
meesha doona ay ka yimaadaan af baa dee lagu hadlaa af Soomaali dhahdo dad badan baa jira dee yani dadkan tilmaamayna dadka qaar wax ka soo horjeedaan Persia Spanish waxay toolay koonfur bari Aasiya Malaya la yiraahdo dad jasiirad Carab oo Yemen iyo Yemen dadkaas oo dhan iyo dadkan Carabta iyo dadka waxay dhadaan Sunuujta ama Afrikaanka ayaa markay ka kala guursadeen kulli hala yani waxay tilmaamayaan dadkan inay dee horta dadkii yani waxa sameysmanay huwiyo cusub af Soomaaliya la yiraahdo dadkan Soomaali yihiin dhul Soomaali ay degan yihiin dad muslimiin yihiin oo hayb afeed oo la qoyo madayso marka yani waxna waa dadkan halkii ka soo horjeedaan taariikhiyan ama anthropologian baa la sugaya oo waxna waa dee yani maanta la joogo waaqica waxna ku nool yani modern state dawlad xadiis yani oo sohdin iyo calan iyo ciidan iyo waxyaabaha loo deeyo yani maanta dadka Soomaaliyeed oo dhashay ama beesha kaliya ay wada degin badda dal laga yaabo in afar dal Kenya, Djibouti, Soomaaliya iyo Ethiopia in afar dal marka yani waxna waa qowmiyad Soomaaliyeed la raadinayo waxna waa dal Soomaaliya oo marka ay ka duwanaanaysaa maanta yani sayna ognahay dadku dee isku waa waxa ka dhaxeeya medium language baa jiro af Soomaaliya lahjada qaar si xoog bataan oo waxyaabo kala caawamil kala si caawayso inay warbaahinta isticmaasho iyo adeegsato ama curriculum manhajti dalka waxyaabahaasna si xoojiyaan marka yani bulsho kastoo waxaan saasna kaliya meeyeen bulsho kastoo dunida maanta yani Ethiopia dirisna la oo qowmiyado farbaad ka kooban hadda dee wadada Ethiopia ummadda Ethiopia intaas lagu celcelinay صح dalkan joogna kadalik sidoo kale beelo fara badan afaf badan lahjad dadka aad u kala duwan marka wadan walba wuxuu ka kooban yahay tanawuc cirqi oo dee uu kala duwan yahay yani inaga bilmunaasabada yani wax badan baa dee dadku af kaliya leeyihiin oo af Soomaaliya lahjad hoose af kaliya hoose si jiray marka wax badan ma bideenay صح إن أدبر ما ستاه مبارك مركنا كتبنا سؤال شيء كله أو إن وحنا نوف فاهسام وحنا كان المدام قبيل وياه سدو وسمع اسمه أصلا قبيل كسيس قاب أي وسمع اسمه جودهان قبيل خصوص ما اسمه بدنا أما سكلا سؤال شا تقول دقنا نحن يعني قبيل سيو يعني لورن كرا قبيل كبلا ما حتى كبلا أنا بدنا تقريبا واحد علماء aqoonyahanka si fiican baadhan Prof Maxamed Cabdullaahi Maxamed Geedi Maxamed Cabdullaahi Gandi wuxuu tilmaamayaa in reer hadduu rabo inuu yani cid rabto inay beel noqoto qabiil meel madax banaan meel taagan tusaalahaan dhowr shuruud dhowr qodob uu tilmaamay marka waxa ka kooban in deegaan yeeshaan marka in deegaan yeeshaan صح جغرافيا معينة سو كله سمت أو دي كانت وضع يعني علامة تجارية مدرستين سمت يعني علن كده علن كده ولد الله هذا كله سو كله هذا حجري كرتا يعني نين ملح يشان قف هجامي يعني قاب هجان أضيع رقم هذا سو كله يشان ضد حول الله يسكو في الآن هين مكتب سلبيحن كران ما بيحن كران قانا كذانا dad dagaalyahan oo leeyihiin gabayaagii u mataliyay difaacay intaas ugu muhiimsan badan anaga Soomaalida marka la fiirsid magacyada kala duwanaadaan marka magacyada dhaqameedka ama hoggaanka magaraad iyo malaaq imaam iyo caaqil iyo maxay toole magacyada kala duwanaadaan guud ahaan waxa tilmaamayado dhaqameed ay dadku deegaan leeyihiin su'aalaha deegaanka waxay mararka qaar ku suntaan cayl badanaa waata dhibaatooyinka dhacaan marka taas ayaa badanaa markii taas mana shuruudahaas heshay in ay sameystaan laga soo aad marka adoo shuruudahaas fiirinaya shuruudaha hadda aad sheegto uu gaanti soo sheegay qabiilada hadda jira Soomaalida oo hadda muuqda ku fiirinaya macnaha ma is qaadanayaan oo waxa oo shuruudahaasi waaqici qalbanay ma kulta يعني marka badana yani marka la sameeyo cilmi baarista
cilmi baadhistu laba qaybsantaa marna dee baxuuth maktabiya la ama research library research صح iyo cilmi baadhis meydaan iyo deegaankii dhulkii la tegay badanaa qodobadanna uu sheegay profku waxa dee markuu fiirsaday qaabkuu samaystay qabiilka Soomaaliya ama samaysmo markuu fiirsaday على هذا منهج كان استقراء يعني بدنا معها يعني wax yani iyadoo laga arkay deeqana qodobadii idee oo soo baxay صح marka ay reer beelka South fiirsato de maanta joogno de ugaas iyo waxa doonto ka tilmaam magacyadooda ta qaato oday dhaqameed hoggaan de maamulkeeda iyo oo haga ay leedahay de xoolahooda sumad bay leeyihiin dad miyiga tagtay kulli sumada wada arkaysa xoolo in magta iska bixiyaan isla bixiyaan kooda waxyeelaya cid kale yani marar badan waxaad arkaysaa yani shaqooyinka dawladda hayso ama dawladnimada cusub badan leedahay tusaale ahaan in qofka qaar la dayriyo oo carabtii hore waxay isticmaalaysaa khalic loo yiraahdo qofkaas anaga ma mid ah marka qaar inay yani dibda yani wadciga taswiirta wadciga lagu sameeyo oo marka qaar waxa dhici karta in dad yani sheekh diinta yaqaana ama culimada qof reerkii lagu soo daro si dawladuhu in qof dhalasho la siiyo yani qof qiimo macrifiya ama khidmad jadiida ama qofna laga saaro qofna la soo geliyo qofna saas leeg waxaan loo yaqaan saxwal jinsiya ama waxaan ama dabada qaliidka aad ma isqaadal jinsiya صح marka shaqooyin badan marar badan waxa yani dadkana dad aragto badana yani waxa baahiyo badan bay dadku day ku qabaan صح hadaan ugu dubnay su'aashaas hadii wax ku harneen qaab dhismeedka hadaan ugu dubnay asagana hadii aanu gudubno qaab dhismeedka intan ku jiray arrimahan baariyay badana waxaan maadaama daris lanahay aad isugu dhownay carabta aad baaray qabiilka Carabeed iyagana badana sidaas leeg qaab dhismeedka ay u sameeysan yihiin waa qaabka qofka bini'aadamku uu sameeyay salahan qoys oo kale badana waa inta canqaw ka hooseeya laga soo bilaabayo kubka ay heer ama reer jilib oo de jilibkii ama loogiya lafti baa lamida qolo oo labada sina dhexdooda inta ah labada inta u dhaxaysa labada sin iyo saaq si soo marka nafsa shay saaq kale waxay carabtan saas leeg qofkii qabiil baa soo qabiil oo la kabida madaxa laf ku taal buduun boo imanaya ayo ashaar boo imanaya asas ana qaaf dhismeedka qofka jirka bini'aadamka ay badanaa sax badanana waa iska yani حتى السوغان الصومالية هذا في الإسلام السوغان كستا ما قرالة هذا ما قف مركو ربين وحبره بدنا أبور كي أنك حنك وضع أبور كي أنك الإنسان والطبيعة أيوة قبل سمعت قفك بني آدم كا أيوم بو كا يعني ما قاعد ربنا أكيد سيد حلاقة دكتور معنا لبضاس هذا دركتو قف بدنا السوغان تيني هذا قو بدنا أما هي سا هنا بو أمانة حكام أمانة حوله يعني أما كمان فرسي محيط ولا حل محيط ولا أما حيوان عادي يدق روح بدن يحس أما بديجانك صح روب أما وحياة روب يقرح يفلعها ونك هذا دبي على قف كان اسكو معنا اسكو مال اسمه يجوين ما فهم كره واحد أيوه مركاين ساس بدنا يعني qaabkay u ablaablayaan ama qaab dhismeedka qofka bini'aadamka sax qaab kale jirto dhirta geedkay soo qaadanayaan oo kale oo guniya goba badan ereygan gun waxa dadka qaar u adeegsadaan in yasitaan oo dadka qaar laakiin marka si fiirsado guntii geedka weeyaan jirkana yani kuntana waxa fadhiistaa dadkii de goortidii xeerbeegtii dadka kala saarayay media dadkii maxay tahay bulshada ugu madnaa marka yani taantaas ka bixlaan maadaama ay su'aal tiri qaab dhismeedka qabaa'ilada Soomaalida waxay in badan kaga yihiin kuwii Carabta sidaan ognahay Soomaalida iyo Carabta macnaha xiriirkooda aad buu u fog yahay waxyaabo far badan
waxaa jira Soomaalida ay ka soo qaadatay in carabtani oo ay ugu horeyso diinta marka ma la dhihi karaa waxaan qabiilka ah iyo sidoo waxaan u yaalay sidaba Soomaaliya waxay u sameeyeen naqli waa wax oo Soomaalida ay soo guursatay isna asan hatta dhaqankeeda wax ku xoojiyay inay macna iyagu ku dayana carabta ma la dhihi karaa runtii deegaankan dadka isku dhownahay darisnimada aad isku dhownahay dariskan noo dhowna badan ay ku saameynayaan wax badan waad kala qaadanaysaan haddiiba dee aragtiyada qaar ee qaba haddii baan taageerno ee le waxay kasoo jeedaan Soomaalida carab waxaa keensanaysa markaan dhaqankiina horta markaan taa ka nimaadno labaduba tusaale ahaan geel bay nimanka dhaqan jiray madaxna kamay jirin jasiiradda carab يعني maamul dhexe oo talis oo taliyay mumka jiray oo isku imaadeen muusig qabaayil islaam bay ahaayeen sidoo kale hantida kaliya lahaayna geelina wax iska keenay asaga yani waxaad moodaa markaad u fiirsatid inanta geel baa laga bixin jiray geel baa la isugu faani jiray hantida ugu badan geel baa ahayd geel baa la kala dhici jiray dadku hantida kale lahaayeen waxay afka inay la isku gabiyo oo gabay badana waxa murtida ay xoog aad saarayeen qofku hadal murtiisan ku hadlo gabiyo gabay la isugu jawaabo la isku gabiyo gabay la isku weeraro geelaasna gabayga labada waxyaabaha aad uga yani markaad u fiirsato waxyaabaha ay iskaga mid yihiin ayaa kamid ah marka yani aad bay isugu dhaqan hada shabahu aad xoogana ay jireen aad bay isugu dhaqan aad bay isugu dhow isugu eegin marka dhaqamo fara badan bay wadaagaan maadaama wadamada carabta markii si loo fiiriyo bad Soomaaliya kala dhaxayso marka dhinacan kale aan fiirino dhanka oo galbeedka oo inaga xigaan Itoobiya iyo dhankan kale ee koonfurta oo Kenya xigto marka dadka meelahaas degan inaan saameyn noocee ah Soomaalida dhaqankooda ku yeeshteen afku inaan fiirino Soomaha booneen maadaama carabta inaga fudud oo badan yahay aan xiriir fara badan oo qaabkii qabaylkii isku wagnahay qaabkii dhaqankii waxyaabo fara badan ee Soomaaliya ka yihiin dhankan kale markaan fiirino maxaa noogu baxaaseen way jiraan yani waxa jirta waxa usraacay aan ka dhaxgalo Mubaarak Axmed daawadayaal wali waxa daawanaysaan barnaamijka arrimaha bulshada oo aan caawa kaga hadlayno sameeysanka qabaa'ilada Soomaalida barnaamijka caawa waxa martin uga Mubaarak Axmed Maxamed oo daneeya dhaqanka afka iyo arrimaha Soomaaliya waxaan marina qaybay ugu duwan barnaamijka balse qadar yar waxay sina dib ay isugu soo laabanayna telefishinka New Africa waa mid guud oo aad kaga bogan doontaan barnaamijyo kala duwan kuwaas oo taabanaya dhan kasta oo nolosha waxaana si gaar ah loogu talagalay bulshadeynta Afrika kuna baxaya afaf kala duwan sida Sawaaxiliga, Hawsaha, Ahmaariga iyo afka Soomaaliga fariintiisuna waa xal u helida dhibaatooyinka jira qaaradan isagoona u maraya qawaaniinta iyo shuruucda saxda ah ee u degsan warbaahinta xaruntiisuna waa Khartoum, Suudaan higsigeenu waa barwaaqada Afrika iyo horumarkeeda daawadayaal waxaad mar kale ku soo dhawaataan barnaamijka arrimaha bulshada
oo aan caawa kaga hadlayno samaysanka qabaa'ilada Soomaaliya. barnaamijka waxaa marti noogu ah Mubaarak Axmed Maxamed oo daneeya dhaqanka, afka iyo arrimaha Soomaalida. Mubaarak, waxaad inooga hadlaysay waxyaabaha ay wadaagaan ummadaha Soomaalida dariska laga dhanka galbeed sida Ethiopia iyo Kenya. way jiraan tusaale ahaan dee waxaa la dhahdaa maxay tahay kushitiga ama kushiti bari. marka afka la eego kale waxaa jirta ereyo badan oo xagga tirada iyo ereyo fara badan yani waxaa jira koox ama qoys afeed ama koox afeed cafarta iyo oromada iyo rendhiilaha yani marka afka la eego culimada afka baadha yani waxay ka yeedeen yani wax badan oo aan ka midaysanay صح imka tiradoo kale way jiraan. صح marka waxa la odhan karaa yani badanaa culimada qaar waxay tilmaameen in dadkan ka yimaadeen Nuuba iyo dhulka ka yimaadeen xayawaan fara badan jireen xiriir badan oo kala dambeeya ah. dadka qaar ku nasteen halkaa degeen buuraleyda kore yani Ethiopia, qaar ku hareen xaggan Nuubadii, qaar xaggan degeen bariga Afrika, Kenya iyo Soomaaliya dhulkan. marka way jiraan dad badan oo yani marka dhanka la eegayo sidoo kale anthropology-ga marka culuntan ama dadka baadha bulshada iyo dhaqamada bulshooyinka iyo dhaqamada baadha yani xataa yani qabiilo kamid ah Eritrea in qaabka yani guurka iyo yani nolosha yani wax badan isaga egnahay dadyo fara badan sida hore ugu tilmaamnay cafarta iyo oromada iyo rendhiilaha. marka yani badanaa yani intaas sano marka dadku waxa laga yaabaa in Soomaalida hadda waxay nabadda afaf fara badan lagu hadlaa lahjaad fara badan qowmiyad fara badan wali in waqtiga marka ashyaal fara badan facyaal kadib in dadku hadana dadku kala noqdaan yani qowmiyada kale. marka culimada badan waxay tilmaamayaan dadku marka horeba watan loo qaybiyey loo ablaabliyey kushitikas iyo marka wax badan bay dee marka loo fiirsa dhanka dhaqanka iyo afka iyo maadaama dee dadku weliba dadku dee daris yihiin oo wadaagyihiin صح wax badan bay iska sameynayaan. aad baad mahadsan tahay. markana dhanka haddaan fiirino abtirsanka iyo isbahaysiga adoo ka bilaaba abtirsanka. runtii markaan eegno dhanka isbahaysiga iyo abtirsiga markaan eegno waxaa jirta laba dhaqan oo Soomaaliya ah oo beeluhu u samaysmaan hab tulwadaag ah iyo hab abwadaag ah. haddaan qaabka hore ku horeyno laba beelood kale oo isku darsaday oo laakiin madax dhaqameed mid kasta gaartiisa leeyahay laakiin laxaad iyo hanti iyo dee isku filan laakiin maamul wadaagaya magtiis la bixinaya aday dagaalkooda geliya. reerka kamid ah reeraha qaar ama magaciisa labada beelood la baxo ama taasi waa qaab kale jirto oo reerkii abtirsankii ka tanaasulayo iyadoo keenaysa isku tabardelay aan isku filnayn marka reer kale ku biirayo. beelaha qaar sida hawiyaha iyo daaroodka kale qofku waa la dhaariyaa xoolaha toleynimo ayaa la bixiyaa oo qofku wuxuu qalayaa loo buqalaa neef loo oo meeshaas abtirsiga tagay reerka ku biiraya maraaxil fara badan heerar badan baa la marinaya. dadka beelaha qaar waxaa dhici karta hore sheegay inay dhaariyaan hadba qofku wuxuu dhaqdo hadday ugaarsta yihiin dee qaansaa loo dhiibaya ayuu bixinayaa xoolaha toleynimada la dhahdo. hadduu beeraley yahayna badar iyo waxbuu bixinaya. marka yani qaabkaasna qaab jiro qofku kaga tanaasulayo dhammaan wuxuu hayo intaan u gudbin tafaasiisha aktarta ah haddii aan murti Soomaaliyeed halkan ku xuso badanaa waxaan ilaawan xasuustay dibka xasuustay waxa jira qaab labaala la yiraahdo ama thunaa'iyaad iska bulshada waa bulsho kasta oo iska leedahay صح يعني قاب لبالا يعني dadka in loo qaybiyo
dhalad iyo galladii iyo maxay tole marar badan dadka loo qaybiyo ثنائيات fara badan صح oo ah oo tilmaamaya tusaale ahaan miyi magaalo jareer iyo jileec oo tilmaamaya jinsi iyo sir iyo waxa tilmaamaya صح marka qarax qiraad iyo istaan iyo qorsi ah wadaad iyo waran le yani dadka noocaas marka qofkii reeraha badan waxa ku arkaysaa galti iyo guri macnaa ثنائياتka labalaha laba kooxeynta macnaha reerkii oo tilmaamaya laba loo kala bixinaya laba loo kala bixinaya tol iyo tago waxyaabaha ogaadin kala isticmaala beelaha qaar saas leeg farbadan yihiin عندن gaar hore ku xiso oraahdan runtii ayaaba marka laba eray baa jira runtii Soomaalida laba erayo runtii eray bixin qurux badan ah oo tilmaamaya hababkan bulshooyinka hadda lagu maamulo confederation iyo federation san hore tilmaamay confederation ka iyo federation labada hore oo soo sheegnay yani labada dhinac ay heshiiska galiya laba xuquuqda ka taraasuliyaan meel dhaxas u imanayaan istiqlaaliyadaatiina leeyihiin madax banaani hoosaada waxyaabadan sidoo kale ah in dhammaan laga wada taraasuliyo marka weedhan baa runtii aad nagu sii faahfaahinaysa marka weedha waxay tilmaamaysaa murti Soomaaliyeed weeyaan hooyo wayna habaraysaa bileen hooyo wayna habaraysaa aabba waa in qoleeyaa ugaaskuna waa in reereeyaa garaadkuna waa in toleeyaa wabarkuna yani wabarka waxaan filayaa abkal yani waa magacyadan oo dhan waxay tilmaamayaan hogaamiye dhaqameedka wabar wuxuu tilmaamayaa wuxuu la mid yihiin ugaas iyo boqor iyo ayuu la mid yahay wabarkuna waa in gamaasa gamas waa confederation gamasa boqorkuna waa in tugaarsha federation wada eray marka waxay tilmaamaysaa oraahdaasi ereyga tumaasa waa erey af Soomaali sax oo dambe Soomaha boonin hadda anaga waxir mawduuca ka baxeen hadda maadaama loo baxshay dawladda federaalka Soomaaliya Soomaha boonin dawladda runtii erey bixintii way Soomaaliya erey bixinta yani runtii dawladdii kacaanka Soomaaliya markii af Soomaaliga la qoray ama farta rasmiga markii la dhaqan galiyay la hirgeliyay farta hadda ah dagaalka farta Soomaaliya markii la hirgeliyay runtii maxal waxyaabi markii yani erey bixin baa la sameeyay ha noqoto afka maamulka oo wasaaradihii dhammaan laamihii dawladda erey bixin loo sameeyay ku shaqeeya sidoo kale manhajkii la diyaariyay marka erey bixintu runtii way istaagtay hadda waxa dadaala dad kaliya ay sameynayaan oo qof way jiraan laakiin ma jirto yani maamul kulli siyaasadda saameyn waxa ku leh استقرارka guud ama saameynta yani waxir hadaan aan ka baxno aan dib ugu soo laabano isbahaysiga abtirsigani oo aan waxirna ku istaagno arintan erey bixintii af Soomaaliga waxaas maadaama oo waqtigan si hanaftirkiisa erayadan faraha badan oo afqaraadka oo la af Soomaaliyeena sida macnaha federaalka waxyaabahaas macnaha saameyn intee laga ay ku helan karaan afka Soomaaliga naftigiisa in nisbadiisu ma badan runtii موضوع ربحينته runtii wuxuu baahan yahay xalaqad gaar ah laakiin waxaan ka tilmaami karnaa su'aalahan markii la sameeyay ribixinta saddex heer bay marin in erey Sooma afka ku jira macna kale loo sameeyo su'aalahan xagal waa laab waad garanaysaa su'aalahan marka xisaabta dhiganaysid zawaaya ama xaglal wala macna kale la siiyay erey hore Soomaaliya ku jiray oo macna kale la siiyay marxaladda labaad ee mariyo xawiyaan in laba erey la soo geeyo callback ma la yiraahdo sax warbaahin sidoo kale waxaa jirtay in la adeegsaday erey bixin qaabka kale la adeegsaday erey bixinta markii la sameeyay hay'ad in erey aan ku jirin ama takaafu luqawi waxa la jira ereygan u dhigmo afka kuma jiro marka waxa la sameeyay waa la qaatay ereyada sidoo radio television wadaan isna sameeyay erey bixin agoon fogaansho arag ويرات كان ساعة يعني أفكر إنه ويكلام هذا وواح كده حجرة كعادة مركها أريف ربنا لما لو حسوا الوقت لما نسيو أبتسم كي إسبان سجاج مركها مركان إجنو علماء يعني بعدا anthropology أما علمها بالشدة يو لقن كي حياة بعدا
waxay leeyihiin iyagoo aragtidooda iskuuliska madaarista kala duwan haddana jiraan haddana wax isku raacsan yihiin inay qabiilku yahay waxa u asalaha ikhtilaad inaanay meel ab inaanay ab keliya ku abtirsan awow keliya ku abtirsan iska yahay abowgan lagu abtirsadaa ama waxaa la samaystay rumus ijtimaaciya theology yani badanaa uu ka dhashay beelahu inaanay ka dhalan yani nasab ama taran dad is dhalay oo dhashay badan ay tahay dad iska cashanayo badan aynan soo culimada hore waxba jira waxa uu qabaayeen aqoonyankii weynaayay culumtan ama aqoontan bulshada iyo taariikhda wax badan wax ka qoray inuu yahay dhammaan uu ku fiirsaday qabaylka carabeed inay yahay runtii maba aha yani wax soo oranaysa marka dadka qaar waxay qabaan bay ama moodayaan bay inay dhibaatadan ku koobantay Soomaalida laakiin markaad baadho yani bulshooyin badan oo Carabi nagu Carabta kale oo aad u haysta markaas wuxuu leeyahay mabaha wax jira nasabku waa wax ramzi yani waa wahmi boornay wax jira ma marka badanaa culimadu waxa isku raacsan yihiin inuu qabiilku ka sameysmo asaga bay sameeyay buu leeyahay oo xagga isbahaysi iyo waxyaabahaas ku sameysma wax yani wada dhalashay iyo dhalasho ku yimaada ma aha taran marka waxay leeyihiin taxalifaadku noocaas ama isbahaysiyaas waa tasniif siyaasi xisbi siyaasi bay ka wadaan oo in dadka san loo kala ablaableeyo beelaha iyo tolol waxyaabaha la sameeyay waxay leeyihiin ba waxay saalaysaa dadkii xukunkii wax ablaableen iska ijtimaaciya oo أنا هين wax biology oo dhashay dadka qaarna yani Arab qabayl far badan oo markii yani dawladda Islaamka hore yani muddo badan jirtay waxa dhacday in dadku magaalooyinka abtirsadaan horta qofku bini'aadamku yani baahi badan baa jirta oo aan hayn cunay cabitaan iyo hoy iyo inuu waxyaabaha qofku inuu bulshada makaano boos ku lahaado kaalin ku lahaado صح مكان اجتماعي حاجة إنه جتوا مهم قفكوا وحيابه حيبتها كم يدين قفكوا من عيد كتير سنة عيد كسوت شيء مال يعني وحيابه كم يدين مركا ما حد يعرف كتير كده من مجالين لقى تسجيلي أنا ما ظهر وين عسقلاني حجري دمشقي واحد مغلق سعد قرطبي مقالة هذا قرطبي كابتن سنة قفكوا ما جيش شو مركا من غني إنه حلة التنين قفكوا يعني marka yani waa maraaxil ma heerar kamid ah nolosha dadka bulshooyinka bilowga ana la gudbi karaa runtii aad baad u mahadsantahay Mubaarak Axmed Maxamed daawadayaal markana waxaan soo gargaaray gabagabadii barnaamijkii caawa oo aan uga hadlaynay samaysanka qabaa'ilada Soomaaliya waxaan soo gaarnaa gabagabadii barnaamijka waxaan ka tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo